بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد قبل ما حربنا أنا كهذا forms of business organizations. marka laga hadlayo business organizationada ama kambaniyada laga hadlayo meeqa form ama meeqa nooc loo sameyn karaa ama ay u sameeysan yihiin kambaniyada. markii company laga hadlayo ama business organization laga hadlayo business organizationada jira waxay u sameeysan yihiin saddexdan qaab midkood ay u sameeysan yihiin ama qaabkay u sameeysan yihiin businessyada waxay jiraan saddex qaab oo waaweyn oo loo sameeyo businessyada jiraan. saddexda form waxay kala yihiin lambarka koowaad waxa la lahaa sole proprietorship, lambarka labaad waxa la lahaa partnership, lambarka saddexaadna waxa la lahaa corporation insha Allah. marka waxaan rabnaa maanta inaan fahanno saddexdaas form oo ay businessyadu leeyihiin waxay kala yihiin inaan fahanno rabnaa. haddii aan ka bilaawno qaabka koowaad waxa la lahaa sole proprietorship baa la lahaa. waxaan isweydiinaynaa sole proprietorship muxuu yahay? sole proprietorship maxaa laga wadaa? waxaan dhehnayaa markii laga hadlayo sole proprietorship waxa waaye waa company uu leeyahay hal qof oo maamula hal qof, hantida taalo uu leeyahay hal qof, faa'iidada company-na uu qaadanayo hal qof waaye. it means waxa waaye company-gan oo dhan wuxuu gacanta ugu jiraa oo hantida taalo iska leh hal qof leh waaye. marka waxaan dhehnayaa company walba uu hal qof leeyahay, faa'iidada uu sameeyana uu qaadan doono hal qof, company-gaas waxa la lahaa sole proprietorship la dhahaa waaye. sole proprietorship waxa la lahaa they are unlimited liability. kambaniyada la lahayo sole proprietorship astaantooda waxaa ka mid ah they are unlimited liabilities waaye. marka unlimited liability waaye kambanigan markii lagu dhahayo maxaa laga wadaa? marka waxaan dhehnayaa unlimited liability waxaa laga wadaa waa astaan uu leeyahay kambaniga. astaantaas oo sheegaysa kambanigan haddii deen lagu lahaado waa inuu iska gudaa waajib ku ah waaye. it means waxa waaye deentaas meel ay ku xadidan tahay ma jirta waaye. example haddii aan soo qaadano company-gan sole proprietorship Allah wuxuu soo qaatay deen oo soo qaatay. markii uu deenta soo qaatay uu awoodi waayay inuu deentaas iska gudo oo iska bixiyo waaye. then waxa isweydiinaynaa haddii uu awoodi waayay company-gan inuu iska bixiyo deentii lagu lahaay maxaa lagu sameynaa? marka koowaad qofkii company-ga deenta ku lahaay wuxuu sameyn doonaa uu tagi doonaa maxkamad uu tagi doonaa. then markii uu maxkamadda tago maxkamaddu waxay fiirin doontaa company-gan unlimited liability miya ama limited liability waaye. company-ga unlimited liability dii uu yahay company-ga hantida taala suuqa la geyn doonaa waa la iibin doonaa waaye si loogu bixiyo lacagihii deemaha lagu lahaay waaye. haddii hantida taala company-ga ay ku filnaan weysay inay bixiso deentii lagu lahaay company-ga maxaa la sameyn doonaa marka? then waxaa loo imaan doonaa hantida khaaska ah oo qofka iska leeyahay hantidiisa suuqa la geyn doonaa la iibin doonaa si loogu bixiyo deemaha lagu leeyahay waaye. example oo kaleeto baabuurkiisa, gurigiisa, hantidiisa shakhsiyan oo isaga u leeyahay suuqa la geyn doonaa waa la iibin doonaa si loogu bixiyo deenta lagu leeyahay company-giisa waaye. then waxa isweydiinaynaa haddii ay ku filnaan weysay lacagtiisa inay deentaas bixiso maxaa lagu sameyn doonaa? then waxaan dhahaynaa qofkaas xabsiga la geyn doonaa ilaa uu iska bixiyo lacagta lagu lahaay oo deenta ah. it means waxa waaye company-giisa unlimited liability waaye. company deentiisa aan meelna ku xadidnayn waaye ilaa uu iska bixiyo waaye. marka laga hadlayo limited liabilities-ka company-ga la lahaayana waxa waaye hantida company-ga taale ku xadidan tahay qofkan deenta uu qaatay waaye. company-ga hadduu yahay limited liability qofka deenta qaatay haddii uu company-ga dacweeyo kaliya maxkamadda waxay iibin kartaa hantida company-ga taalo. hantida company-ga taalo haddii la iibiyo oo ay bixin weyso deenta company-ga lagu lahaay then qofka deenta lahaay inuu cafiyo ama uu iska sabri tagaysaa waaye because of qofkan hantidiisa shakhsiga ah suuqa lama geyn karo waaye because of company-giisa wuxuu yahay limited liability waaye. deenta uu qaatay waxay ku xadidan tahay kaliya hantida company-ga taalo waaye. marka waxaan dhahaynaa markii laga hadlayo sole proprietorship waa company la dhahayo unlimited liability waaye. deenta aa qaadatay kaliya inaa iska bixisaa laga rabaa. hantida company-ga suuqa la geynaa haddii ay bixin weyso deentaas hantida shakhsiga suuqa la geynaa haddii ay bixin weyso kadib xabsiga lagu geynaa ilaa aad iska bixisid deentaas lagu leeyahay. marka waxaan dhahaynaa company-da la lahayo sole proprietorship ah they are unlimited liability waaye. sidoo kaleeto markii laga hadlayo sole proprietorship inuu baaba'o ama uu xirmo waxay ku xiran tahay lambarka koowaad the death of the owner. qofka owner-ka ah haddii uu dhinto company-ga sole proprietorship wuxuu noqonaa wuu baaba'aa waaye. company xirmay oo aan shaqaynaynin noqonaa waaye. sidoo kaleeto by the owner's choice wuxuu ku xirmi karaa ama uu ku baabi'i karaa company-gaas qofka owner-ka haddii uu doorto company-gan inuu iska xiro waaye. then waxaa dhahaynaa company-ga sole proprietorship wuxuu ku xirmi karaa markii aan helno labadaas condition oo ah lambarka koowaad qofkii company-ga lahaay inuu dhinto
ama qofkii kambaniga lahaa oo go'aansaday inuu kambanigan iska xiro waay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.